waxaa mar kale muuqata khilaafka u dhaxeeya madaxweynaha muddaxileedkiisa sharciga oo ilaaday farmaajo ra'iisul wasaare Roble inuu weli xoogan yahay oo uu ku milmay dhanka amniga iyo weliba sidoo kale ciidamada qodobkii ugu cuslaa ay ku jireen heshiiskii 9kii bishii Janaayo ee gaareen madaxda golaha wadatashiga qaran ayaa u muuqda mid burburay kadib markii ciidamo fara badan oo kamid ah kuwa Haramcad iyo Gorgor ee dawladda Soomaaliya markale laga dejiyay magaalada Beledweyne gobolka Hiiraan waxaase lagu eedeynayaa in markale ciidamadu ay ku milmeen xasradaha siyaasadeed ee dalka ka jira iyo doorashooyinka qodobka 16aad ee ku jira heshiiskii golaha wadatashiga qaran ee madaxda ayaa dhigaya in ciidamadu ay dhexdhexaad ka noqdaan arrimaha siyaasadda kuna ekaadaan ilaalinta amniga dalka oo kaliya ciidamadu waa inay dhexdhexaad ka noqdaan arrimaha siyaasadda kuna ekaadaan waajibaadkooda ilaalinta amniga dalka dadkana ay u hoggaamsamaan dhammaan shuruucda iyo xeerarka dalka u yaalo ayuu dhigayay qodobka ay soo saareen madaxda golaha wadatashiga qaran heshiiskii lagu gaaray 9kii bishii Janaayo sanadkan burburka qodobkan waxaa soo dedejiyay kadib markii madaxweynaha sharciyadu ay ka dhamaatay farmaajo ciidamo hor loo ka dejiyay magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan kaasoo xukuumaddu ay ka soo horjeesatay diyaarado sida ciidamo kuwa sida gaarka u tababaran commandoska Gorgor iyo waliba booliiska sida gaarka u tababaran Haramcad ayaa arbacadii laga dejiyay garoonka diyaaradaha ugaas Khaliif ee magaalada Beledweyne waxay si adkeysay xasarada iyo sidoo kale doorashada halkaas ka dhici lahayd Beledweyne waxay taala kuraas xildhibaan ah oo u doonaya farmaajo inuu saameyn weyn ku yeesho waxa kuraas Beledweyne taala qaybka kursi uu rabo la taliyaha amniga farmaajo Fahad Yaasiin war-saxaafadeed ka soo baxay golaha midowga musharaxiinta toddobaadkan waxaa lagu sheegay in talaabada ciidamada lagu geeyay Beledweyne ay tahay qalalaaso madaxweynaha muddaxileedkiisu dhamaaday uu ka sii hurinayo xiisada gobolka Hiiraan mucaaradku waxay ugu baaqeen ra'iisul wasaare Roble inuu qaado talaabo ku dhisan mas'uuliyad ku aadan xaqiijinta ciidanka in laga dhex saaro siyaasadda loona jiheeyo dagaalka al-shabaab iyo Daacish oo albaabada isugu dhuftay qaybo kamid ah suuqa ugu weyn ee Soomaaliya golaha wasiirada ayaa ina shalay shir degdeg ah yeesheen waxay amreen in si degdeg ah loo soo celiyo ciidamadii la geeyay magaalada Beledweyne xarunta gobolka Hiiraan taasoo muran xoog leh dhalisay wasiirada amniga gaashaandhigga iyo arrimaha gudaha ayaa loo xil saaray soo celinta ciidamadaasi qoraalka golaha wasiirada waxaa lagu sheegay in ciidamada aan loo adeegsan karin dana siyaasadeed oo ku qeexan mid lagu sumcad dilay ciidanka qaranka hase yeeshee ma cadda haddii talaabadan ciidamadu ay talaabada ay qaadeen xukuumadda sida ay ku dhaqan gali doonto ciidamadaasi mar kale dib loogu soo celin doono magaalada Muqdisho si kastaba madaxweynaha muddaxileedkiisu dhamaaday farmaajo ayaa lagu eedeynayaa in hadda uu buriyo qodob kamid ah heshiiskii golaha wadatashiga qaran ciidamaduna mar kale u adeegsada arrimo siyaasadeed walaa xoog la ayaa laga muujinaya 25 kursi ee taala magaalada Beledweyne sida kuraastaas ee loo maareyn lahaa iyo hanaanka ay u dhici doonto doorashada inkastoo madaxda Hirshabelle weli qaarkood gaar ahaan madaxweynaha maamulkaasi Cali Guudlaaw uusan ka hadal xasrada gobolka Hiiraan waxaa mar kale muuqata khilaafka u dhaxeeya madaxweynaha muddaxileedkiisa sharciga oo ilaaday farmaajo ra'iisul wasaare Roble inuu weli xoogan yahay oo uu ku milmay dhanka amniga iyo weliba sidoo kale ciidamada qodobkii ugu cuslaa ay ku jireen heshiiskii 9kii bishii Janaayo ee gaareen madaxda golaha wadatashiga qaran ayaa u muuqda mid burburay kadib markii ciidamo fara badan oo kamid ah kuwa Haramcad iyo Gorgor ee dawladda Soomaaliya markale laga dejiyay magaalada Beledweyne gobolka Hiiraan waxaase lagu eedeynayaa in markale ciidamadu ay ku milmeen xasradaha siyaasadeed ee dalka ka jira iyo doorashooyinka qodobka 16aad ee ku jira heshiiskii golaha wadatashiga qaran ee madaxda ayaa dhigaya in ciidamadu ay dhexdhexaad ka noqdaan arrimaha siyaasadda kuna ekaadaan ilaalinta amniga dalka oo kaliya ciidamadu waa inay dhexdhexaad ka noqdaan arrimaha siyaasadda kuna ekaadaan waajibaadkooda ilaalinta amniga dalka dadkana ay u hoggaamsamaan dhammaan shuruucda iyo xeerarka dalka u yaalo ayuu dhigayay qodobka ay soo saareen madaxda golaha wadatashiga qaran heshiiskii lagu gaaray 9kii bishii Janaayo sanadkan burburka qodobkan waxaa soo dedejiyay kadib markii madaxweynaha sharciyadu ay ka dhamaatay farmaajo ciidamo hor loo ka dejiyay magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan kaasoo xukuumaddu ay ka soo horjeesatay diyaarado sida ciidamo kuwa sida gaarka u tababaran commandoska Gorgor iyo waliba booliiska sida gaarka u tababaran Haramcad ayaa arbacadii laga dejiyay garoonka diyaaradaha ugaas Khaliif ee magaalada Beledweyne waxay si adkeysay xasarada iyo sidoo kale doorashada halkaas ka dhici lahayd Beledweyne waxay taala kuraas xildhibaan ah oo u doonaya farmaajo inuu saameyn weyn ku yeesho waxa kuraas Beledweyne taala qaybka kursi uu rabo la taliyaha amniga farmaajo
Fahad Yaasiin. War-saxaafadeed ka soo baxay golaha midowga musharaxiinta toddobaadkan waxaa lagu sheegay in tallaabada ciidamada lagu geeyay beledweyne ay tahay qalalaaso madaxweynaha muddaxileedkiisu dhammaaday uu kasii hurinayo xiisada gobolka Hiiraan. Mucaaradku waxay ugu baaqeen Ra'iisul Wasaare Roble inuu qaado tallaabo ku dhisan mas'uuliyad ku aadan xaqiijinta ciidanka in laga dhex saaro siyaasadda loona jiheeyo dagaalka Al-Shabaab iyo Daacish oo albaabada isugu dhuftay qaybo ka mid ah suuqa ugu weyn ee Soomaaliya. Golaha wasiirada ayaa ina shalay shir degdeg ah yeesheen waxay amreen in si degdeg ah loo soo celiyo ciidamadii la geeyay magaalada beledweyne xarunta gobolka Hiiraan taasoo muran xoog leh dhalisay. Wasiirada amniga, gaashaandhigga iyo arrimaha gudaha ayaa loo xil saaray soo celinta ciidamadaasi. qoraalka golaha wasiirada waxaa lagu sheegay in ciidamada aan loo adeegsan karin dana siyaasadeed oo ku qeexan mid lagu sumcad dilay ciidanka qaranka. hase yeeshee ma cadda haddii tallaabadan ciidamadu ay tallaabada ay qaadeen xukuumadda sida ay ku dhaqan gali doonto ciidamadaasi mar kale dib loogu soo celin doono magaalada Muqdisho. si kastaba madaxweynaha muddaxileedkiisu dhammaaday Farmaajo ayaa lagu eedeynayaa in hadda uu buriyo qodob ka mid ah heshiiskii golaha wadatashiga qaran ciidamaduna mar kale u adeegsada arrimo siyaasadeed. walaa xoog leh ayaa laga muujinaya 25 kursi ee taala magaalada beledweyne sida kuraastaas ee loo maareyn lahaa iyo hanaanka ay u dhici doonto doorashada. inkastoo madaxda Hirshabelle weli qaarkood gaar ahaan madaxweynaha maamulkaasi Cali Guudlaaw uusan ka hadal xasrada gobolka Hiiraan. waxaa mar kale muuqata khilaafka u dhaxeeya madaxweynaha muddaxileedkiisa sharciga oo ilaaday Farmaajo iyo Ra'iisul Wasaare Roble in weli uu xoogan yahay oo ku milmay dhanka amniga iyo waliba sidoo kale ciidamada. qodobkii ugu cuslaa ay ku jiray heshiiskii 9kii bishii Janaayo ee gaareen madaxda golaha wadatashiga qaran ayaa u muuqda mid burburay kadib markii ciidamo fara badan oo ka mid ah kuwa Haramcad iyo Gorgor ee dowladda Soomaaliya mar kale laga dejiyay magaalada beledweyne gobolka Hiiraan. waxaase lagu eedeynayaa in mar kale ciidamadu ay ku milmeen xasradaha siyaasadeed ee dalka ka jira iyo doorashooyinka. qodobka 16aad ee ku jira heshiiskii golaha wadatashiga qaran ee madaxda ayaa dhigaya in ciidamadu ay dhexdhexaad ka noqdaan arrimaha siyaasadda kuna ekaadaan ilaalinta amniga dalka oo kaliya. ciidamadu waa inay dhexdhexaad ka noqdaan arrimaha siyaasadda kuna ekaadaan waajibaadkooda ilaalinta amniga dalka dadkana ay u hoggaamsamaan dhammaan shuruucda iyo xeerarka dalka u yaalo ayuu dhigayay qodobkii ay soo saareen madaxda golaha wadatashiga qaran heshiiskii lagu gaaray 9kii bishii Janaayo sanadkan. burburka qodobkan waxaa soo dedejiyay kadib markii madaxweynaha sharciyadu ay ka dhamaatay Farmaajo ciidamo hor loo ka dejiyay magaalada beledweyne ee gobolka Hiiraan kaasoo xukuumaddu ay ka soo horjeesatay. diyaarado sida ciidamo kuwa sida gaarka u tababaran ee commandoska Gorgor iyo waliba booliiska sida gaarka u tababaran Haramcad ayaa Arbacadii laga dejiyay garoonka diyaaradaha Ugaas Khalifa ee magaalada beledweyne. waxay si adkeysay xasrada iyo sidoo kale doorashada halkaas ka dhici lahayd. beledweyne waxay taala kuraas xildhibaano ah oo u doonayo Farmaajo inuu saameyn weyn ku yeesho. waxaa kuraas beledweyne taala qaybka kursi uu rabo la taliyaha amniga Farmaajo Fahad Yaasiin. war-saxaafadeed ka soo baxay golaha midowga musharaxiinta toddobaadkan waxaa lagu sheegay in tallaabada ciidamada lagu geeyay beledweyne ay tahay qalalaaso madaxweynaha muddaxileedkiisu dhammaaday uu kasii hurinayo xiisada gobolka Hiiraan. mucaaradku waxay ugu baaqeen Ra'iisul Wasaare Roble inuu qaado tallaabo ku dhisan mas'uuliyad ku aadan xaqiijinta ciidanka in laga dhex saaro siyaasadda loona jiheeyo dagaalka Al-Shabaab iyo Daacish oo albaabada isugu dhuftay qaybo ka mid ah suuqa ugu weyn ee Soomaaliya. golaha wasiirada ayaa ina shalay shir degdeg ah yeesheen waxay amreen in si degdeg ah loo soo celiyo ciidamadii la geeyay magaalada beledweyne xarunta gobolka Hiiraan taasoo muran xoog leh dhalisay. wasiirada amniga, gaashaandhigga iyo arrimaha gudaha ayaa loo xil saaray soo celinta ciidamadaasi. qoraalka golaha wasiirada waxaa lagu sheegay in ciidamada aan loo adeegsan karin dana siyaasadeed oo ku qeexan mid lagu sumcad dilay ciidanka qaranka. hase yeeshee ma cadda haddii tallaabadan ciidamadu ay tallaabada ay qaadeen xukuumadda sida ay ku dhaqan gali doonto ciidamadaasi mar kale dib loogu soo celin doono magaalada Muqdisho. si kastaba madaxweynaha muddaxileedkiisu dhammaaday Farmaajo ayaa lagu eedeynayaa in hadda uu buriyo qodob ka mid ah heshiiskii golaha wadatashiga qaran ciidamaduna mar kale u adeegsada arrimo siyaasadeed. walaa xoog leh ayaa laga muujinaya 25 kursi ee taala magaalada beledweyne sida kuraastaas ee loo maareyn lahaa iyo hanaanka ay u dhici doonto doorashada. inkastoo madaxda Hirshabelle weli qaarkood gaar ahaan madaxweynaha maamulkaasi Cali Guudlaaw uusan ka hadal xasrada gobolka Hiiraan.